aniga horta nin oday ah oo maanta ku qiyaasay dadka 60 sano jira aan waxa kula kulmay soonaha xarar dheere ninka odaga ah nin xoolaaley ah oo dadka duurka baadiyaha ku nool ahaa habeenada kamid ah baa waxa u soo martisay 3 nin oo shabaab ah ninka odaga waxa u joogtay gabar cidda markay u imaanayeen ma aysan dhihin gabara ka rabnaa waxay ugu yimaadeen waxaan ka rabnaa inaan marti soortaan hadda reer markii intii baadiyo dad marti u yimaadaan la marti soorana waxa la arki jiray de martida in si fiican loo sooro ninka odaga ahaa qisadii igu sheekay waxa kamid ahayd in 3 nin markay u yimaadeen mootay wateen salib halkaas kala dhigteen xeradii nin kamid ah irinta ka istaaga arigii u tagay neefka ugu buurnaaba soo qabtay birtu saar ugu gowrac ayaga maamulaya markii neefkii waxyaa naloo karsho ay birayeen waa loo kariyey waa loo bisleeyey waa ay cuneen reerkii waa u karinaya markii ay loo bisleeyo la siiyey bay waxay u yeereen maamadii guriga joogtay odagii waxay dhaheen waxaan ka rabnaa gabar markaas guriga joogtay oo qiyaastii 18 kilomitir uu markay igu sheegay 18 sano da'deed ahaan marka wuxuu ku yiri waxay yiraahdeen waxaan ka rabnaa gabadhaana ka soo doonnay Amir Hebel aan siinayna Amir Hebel aan u geynayna nin kale oo meesha aan joogin wuxuu yiri gabadheeda aniga saan lagu ma soo doonto gabar si lagu soo dooni jiray igu imaada marka way ka dideen waxa leeyahay hadaadan abarka qaadan waa lagu bareenayaa ha bis gabadhii maamadii iyo odagii waa idag faareen waa isla yaabeen waxa dheen anagu gabar ma bixi karno amana dile amana daay gabadhii bay u yimaadeen gabadhina guriga joogtaa gabadhii markii odagii iyo habartii iyo ninkii waa yiraahdeen isku carbaabeen waxa leeyahay la isku afahmi waayay nin kamid ah soo tagay gabadhii u yimid meeshii gabadhii soo jiiday maamadii iyo habartii u keenay meesha joogtay maamadii odagii u keenay markuu u keenay waxay ku yiraahdeen gabadha ama bixi ama adiga iyo maamadana way dilina gabadhana wadanayna maanta wuxuu yiri hadaad xoog ku wadanaysaan gabadheed wad sidii waxay ugu wateen waa ka haysteen markay ka haysteen oo gabadhii ka wateen nin kamid ah u soo laabtay reerkii 3 nin kamid ah u soo laabtay waa isla markii isla daqiiqadiiba gabadhii mootay saarteen gabadhii markii mootay saarteen u soo laabteen waxa la yiri telefoon gabadha marka ay ka qaad ay meesha ka qaadeen sidii gabadhu la tageen ilaa abtino gabadhii sidii ninkooda war maqanta ilaa maantadan ma laga warhayaa gabadhii inay nooshahay inay dhimatay xaaladeedii halkay ku sugan tahay may odag wax war kama hayo nolol iyo geli meel kuma sheegay tacdiyada marka dadka shacabka ay u geysteen ay kamid tahay taas waxaan rajaynaynaa in insha Allah gabadhaas aad idinka iyo ciidamada qaranka ciidamada xoogga dalka ma soo badbaadisaan iyo dad kale oo la mid ah oo aan dhibaatooyinkooda la soo koobi karin dhinaca kale mudug waxaa la sheegaa in dadka ay aad u dagaalmeen shacabka ah adiga dagaaladii aad shabaabka la gasheen ama aad ku wajahdeen kuwee ugu xasuusta badan ama aad waxyaabaha ugu yaab badan kala kulantay kuwee hayeen horta shabaab annaga dagaalo fara badan aan la galnay waa meesha lagu soo koobi karin dagaalka mudugna wuxuu bilowday 2021 bishii 7 habeenkii qaraxa wasiilad u dhacay wixii ka dambeeyay meelo badan fara badan dagaal lagu la galay meel yiraahdo cimaamada lagu la galay meel yiraahdo qaycada waxa dagaal ka socday muddo adiga 2 bilood iyo bara dagaal ka socday oo shabaab iyo annagu isku noqonin walow maanta u dambeysay aan shabaab aan ka saarna shabeelow meesha la oran jiray isha qaycad maantay oo wixii ka dambeeyana dee ciidankan waxa ay qabteen oo ay intaas la dagaalamayeen shabaab maalin la dhihi karo ciidanka daraawiishta galmudug iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka macawisleyda ka howlgala gobolka mudug waa nasteen lama dhihi karo waa maalinkaas intaas waxay u taagnaayeen difaaca dadka dalka iyo diinta u taagnaayeen aad iyo aad uga mahad celinayaan saraakiisha iyo ciidamada intaas difaaca ku jiray ciidankan waxay ka soo howlgaleen waxay qabteen xarar dheere waxay qabteen baraag Ismaaciil baraag Hurdaay waxaan rabaa marka dagaaladii aad foolka shaabka ula gasheen maxaa kugu yaab badnaa xaqiiqda waxay kula yaab badnayd dagaalkii annagoo xareer inta ka nimid meel la doon laayo hadda noo muuqato meeshaas burahaas ku aadan aan kula galnay annagoo xareer ka nimid oo galab soconna jidkii noo galeen niman adigu 30 ilaa 20 meelahaas marka
niman aad taatikadooda u xumaydna waa ahayd kuma aysan talagelin ciidan awooddu intaas leeyahay ku soo aadaysa 25 nin meesha lagu dilay 25 nin markii lagu dilay meeshaas intii ka laba noo kamid ah nolosha ku qabanay meeshina sida loo wareegnaba sidaasna waxaan uga soo galnay meel la doon laay oo talis u ahayd baahin gurnaga galay markii 25 laga dilay laba nin nolosha lagu qabtay oo labada nin aan qabanay xog fiican siiyeen baa waxaan ku galnay goti kale oo saar laba maalin buu subax 3 saac dagaal ku bilowday wuxuu hakaday maqribkii markii salaada la tukanay baan ka saarnay godadkaas talis aad weyn aad qabateen xogta idin siinayaan sida uu kalsoonaateen waxaan u kalsoonaanay maadaama la qabtay xilligaas maadaama uu dagaaladu ay ka socdeen meesha la oran jiray Ishaag Caws Weyne iyo Galcad iyo meelo badan oo dagaal ka socday aysan nimanku meeshan ay ahayd wixii joog aw boos waxayna siiyeen ciidanka awoodda u badnaa ay ku maqantay xagga sidaas aan ku galnay meesha marka waa iska aaminteen waa aaminaa ku galnay anagu dad markii dad waxaan ahayd ashaad ku dirra waxa ku dirra ahayd tabti ilaahay uu guulay fikirkii shabaabkii aad qabateen labadaas nin iyo kuwa kale oo aad dagaal kale ku qabateen ama iskiin soo dhibay oo kale maxaa qiso ah oo aad isleedahay way mudan tahay in dadka la gaarsiiyo oo yaabkeeda la idana waxaa la yaab horta nin annaga aan qabanay oo shabaab ah asagoo raba maantay markii xabadu bilaabatay ninkaas wuxuu ku sameeyay orod buu soo orday ciidankii ilaa nin soo dhiibay uu ahaa ciidanku way qabteen markii la qabtay waraysigan ka qaadnay wuxuu kamid ah ninkaas caqabadaha ugu badan ee shabaab uu kala kulmay inay ahayd inuusan hooyadiis la hadli karin aabihiis la hadli karin walaalihiis la hadli karin xiriir kala uu sameyn karin wax taleefanana aan loo ogoleen $30 lacagana ay qaataan marka dhibaatooyin fara badan ahayd muxuu sameeyay ninku wuxuu sameeyay markuu soo dhiibay oo yimid waa la qabtay waraysigan ka qaadnay wuxuu una siiyay inuusan 3 sano oo shaab ka mid ka hooyadiis la hadlin aabihiis la hadlin walaalihiis la hadlin xaaskiisa uu sameel ku sheegin ilmihiisa uu sameel ku sheegin taleefan wax leeyahay uusan haysan $30 lacagana uu guna u qaadanay waa dareemi kartaa maanta qof ilma leh xaas leh hooyo leh aabba leh $30 waxaan ku qabanay qaacad meel leh